daawadayaal wararka ka imanaya magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay sheegayaan inuu halkaasi ku geeriyooday siyaasi cali khaliif galeydh oo kamid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliland. daawadayaal waxa khadka si toos ah ugu jira siyaasi cali artan oo kamid ah siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ah ee waddan wax ka weydiinay geerida Allah u naxariistay cali khaliif galeydh. cali ma maqlaysaa? fiican baan ku maqlayaa inaalilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. cali khaliif galeydh wuu go'ay maanta go'ay waxa weeye cunto ayuu markii hore xanuunka ka qaaday. cuntada uu ka qaaday waxa dhacay macaankiisa dhacay markaa ku dhacayna way soo noqon waayey waa laba calo dhaqtar la geeyey asaatee meeshuu ka gelin sidaasuu ku geeriyooday. ilaahay naxariistina ka waraabiyo hadduu wanaagsan buu ahaa ilaahay naxariistina ka waraabiyo oo siyaasiya Soomaali ka baxay. waan gartay laakiin cali markii hore magaalada Jigjiga muddooyinkii u dambeeyay marxuu kuwa uu joogay maxalad caafimaad ayuu joogay mise ku soo boodo ayuu ahaa xaaladiisa caafimaad way wanaagsaneyd ku soo boodo waxay ku qoysan cunto ka qaado cunto waan gartay waxa soo noqon waayay macaankiisii ayaa hoos waagaag aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. daawadayaalkaasi waxa waa siyaasi cali artan oo noo xaqiijiyay geerida Allah u naxariistay siyaasi cali khaliif galeydh. aad iyo aad u mahadsantahay.